waa kooxda Brazil oo kamid ah kooxaha heerka saddexaad ee Hargeysa ka dhisan oo socdaal isugu jira dalxiis deegaan barasho iyo kulamo saaxiibtinimo la ciyaari doonta kooxo ka dhisan magaalooyinka Burco iyo Berbera kaga ambabaxaysa magaalada Hargeysa. socdaalka dalxiiska ee kooxda Brazil kaga bilowday Hargeysa ilaa Burco ayaa aan socon doonaa 183 kiiloomitir noona dheereed 114 mayl. socdaalka aan ka bilownay magaalada Hargeysa ayaan siin barnay deegaanada Halleeya oo Barkhalle Diinqal geedka dheenta Dhubato Dacarburuq Macaaneeye Abdaal Lafaruug Xamaas Berbera Kalabayd Laaleys Tuulo Xayawaan Hudusa Dawga Sheekh Galooley Qoyta Karasharka ilaa Burco oo aan nabad iyo caafimaad qab ku soo gaadhnay. garoonka AL-AhmaDi Stadium ayaa kooxda Brazil kulan saaxiibtinimo kula ciyaartay kooxda New Power oo kamid ah kooxaha heerka labaad ee magaalada Burco ka dhisan. waxa uu ahaa kulan kooxda New Power 5-3 uga soo badisay kooxda Brazil oo kamid ah kooxaha heerka saddexaad ee magaalada Hargeysa. waxaan subaxnimadii Jimcaha ka soo jarmaadnay magaalada Burco ilaa aan ka soo gaarnay magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil waxaana xoogaa dalxiisa oo kooxda Brazil ku qaadatay dhanka badda. bacda dalxiiskaaban kulan saaxiibtinimo waxay la ciyaartay kooxda Adka oo kamid ah kooxaha heerka labaad ee magaalada Berbera ka dhisan. waxaana kulankan uu noqday mid ku soo idlaaday 2-1 guusha ku raacday kooxda Brazil xilli kooxdu dib iskugu diyaarisay dib ugu noqoshada caasimadda Hargeysa. laga bilaabo magaalada Berbera Xamaas Lafaruug Abdaal Macaaneeye Dacarburuq Dhubato geedka dheenta Diinqal oo Barkhalle Halleeya ilaa aan Hargeysa ku soo gaadhnay jawiga magaalada Hargeysa oo rooban. waa anigu Axmed Qarana anigoo Cabdirashiid Dhamaca sidoo kale Xasan Aadan Cabdisalaam Sall Muxyidiin Ariido iyo dhammaan bahdii malcab.com oo isku duuban oo idin leh inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kala hadii Allah awood leeyahay waxaanu idinkaga tagnaa sida iyo nabad geliyo.